Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Dowladda Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel ayaa soo qabanqaabiyay kulankan oo ahaa mid lagu soo gabagabeynayay tababar afartii maalinle lasoo dhaafay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb lagu siinayay xubno ka socda degmooyinka Dhabbad iyo Galnisoor ee gobolka Galgaduud iyadoo sidoo kale kulankan gunaanadka ah ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaano iyo agaasimayaal ka tirsan dowladda Galmudug. Tababarkan ayaa afarta maalinle u socday waxaa xubnaha ka qaybgalayay ee ka kala yimid degmooyinka Dhabbad iyo Galnisoor oo ay ugu horeeyaan maamulada degmooyinka, saraakiisha booliska, ururada haweenka iyo dhalinyarada. Waxaa lagu barayay sida ay uga qayb qaadan lahaayeen dadaallada lagu horumarinayo nabadda, ciribtirka dagaalada qabaa'ilka iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshooyinka ku nool deegaanada hoostaga degmooyinka Dhabbad iyo Galnisoor ee gobolka Galgaduud. Ugu horeyn, Maxamed Cali Gaani, agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladda Galmudug ayaa ka warbixiyay kulankan. Munaasabadan waxay daaran tahay waa qada sharaf. Waxaa qada sharafka loo sameeyay labada degmo ee Galnisoor iyo Dhabbad oo ugu horeeyaan guddoomiyaashooda iyo qaybaha kala duwan ee maamulka iyo taliyayaasha amniga. Ka gadaal markii ay qaadanayeen training ah oo ku saabsan nabadda, horumarinta maamulka iyo isdhexgalka bulshada ay qaadanayeen ayaa markuu trainingkii u soo gabagaboobay waxaa qada sharaf fidiyey oo qada sharafkan u sameeyay inuu si ugula dardaarmo wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Jaamac. Qada sharafkaas ay ku saabsan tahay waxaana loo dhigay labada degmo ee walaalaha ee dariska ee la yiraahdo Dhabbad iyo Galnisoor in maamulkooda lagula hadlo, lagula dardaarmo, lagu sagoontiyo, galabta lagu ambabixiyo intaan oo akhyaarana sidaas la isugu yeeray inay arintaas qayb ka ahaato. Ururada haweenka iyo dhalinyarada ee degmooyinka Dhabbad iyo Galnisoor isla markaana qayb ka ahaa tababarkan afarta maalin uga socday magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay inay wax badan faa'iideen isla markaana deegaanada ay ka yimaadeen ay ku celinayaan aqoonta ay halkan ka faa'iideen, iyagoo sheegay inay qayb ka noqonayaan dadaallada lagu horumarinayo nabadda meeshana looga saarayo dagaalada qabaa'ilka ee halkaasi ku soo laalaabtay. Waxaan ka fahamnay tababarkan isdhexgal bulsho, isbarasho, annagoo dhammaanteen hadda is soo qabanin intaan qof walba meeshaan markaan isku aragno meelaha kale waa faa'iido weyn oo la gaaray. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dadka nabad iyo inuu dhex dhigo. waxaan rabnaa si gaar ah inaan ugu mahadcelino wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Galmudug uu u horeeyo wasiirku mudane Waayeel hawsha ay ka hayaan shaqada adag ee ka hayaan dib u heshiisiinta Galnisoor iyo Dhabbad nawaaxigeeda iyo inta hoos timaadaba waxaan filayaa inay meel fiican marayso aad ay u wacan tahay. Marka waxaan adkeenaynaa anoo afka dhalinyarada degmada Galnisoor ku hadlahaya in la jibaaro waayo intii ay socotay hawshu nabadeynta wax weyn baa iska bedelay deegaankii iyo dadkiiba intaba. Dhanka kale, guddoomiyaasha degmooyinka Dhabbad iyo Galnisoor oo iyaguna kulankan hadallo ka jeediyay ayaa u mahadceliyay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladda Galmudug dadaalka ay ku bixinayso nabad waarta oo deegaanada hoostaga degmooyinkaasi ka hirgasha, iyagoo sheegay inay sii laba jibaarayaan dadaalkooda ku aadan in la cirib tiro isla markaana meesha laga saaro dagaalada qabaa'ilka. halkaan 3 maalmood baan joognay waxa la wixii nala faray ama wasaaradda arrimaha gudaha na fadhay ama annaga hortayada yaalla hadii ay ahayd ma waxaan jecelahay inaan ku shaqeynaa jecelahay hadal badan haamil lagama buuxso annaga ilaahay hadduu idmo halkaan shaqada ka socoto Galnisoor iyo Dhabbad laba nooc waa u socotaa, maamul ahaanna waa u socotaa, odayaal ahaanna waa u socotaa. annagu degmo ahaan waxaan lagu aadan inaan ka shaqeynaa rabnaa hadii alla idmo. aad iyo aad baa wasaaraddu u mahadsan tahay iyo wasiirka iyo agaasimayaasha iyo inta ka soo qayb gashay oo dhan. halkaan waxaan uga mahadcelinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha oo na soo kaayeertay labada degmo muddo 3 maalmoodana u qabatay tababaro labada degmo. arrintaas oo daarayd wacyigelin iyo isbarasho ee labada degmo iyo maamuladoodu inay iswareystaan, isbartaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada ay wasaaraddu
ay qorshaheedu ahaa ay si fiican u fahmaan ayaguna ay ka ballamaan qaabkii wada shaqayn lahaayeen oo deegaamada iyo dadka shacabka ah oo dhibaatooyinku ay dhex yaallaan la isugu keeni lahaa arrintaasay daarayd wasaaradda arrimaha guduhu bishii 8aad 2025 ayay dhacdooyinka ka dhacay deegaamadaas labada degmo bay gogol u dhigtay dhex gashay kadib la isugu keenay gobolka galgaduud ee xarunta dowlad goboleedka galmudug halkaas oo loogu qabtay shirar lagu heshiisiiyey dib heshiisiin loogu qabtay go'aano ay ka soo baxeen iyo qodobo lagu heshiiyey ilaa hadda 7 bilood ayay arintaasu waxay tahay nabad bay bulshadaas ku wada nool yihiin. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel oo isagoo kulanka soo xiray ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo guud ahaanba dowladda galmudug ay ka go'an tahay in galmudug noqoto aag ka caagan dagaalada qabaa'ilka ee muddada dheer ku soo laalaabanayay iyadoo wasiirku sheegay in deegaanada hoostaga degmooyinka Dhabbad iyo Galnisoor hadda ay ka hirgashay nabad buuxda oo la isku halleyn karo taasi oo ku timid dadaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wada shaqaynta dadka deegaanka. waxaan ka rabnaa marka kulamadeennan inay noqon wax khasaaray aad ku ballantaan hadda telefonaadkan la qaataan mararka ku xiga inaad noogu yeertaan adinkoo Galnisoor wada joogay adinkoo Dhabbad wada joogay adinkoo intaasoo magaalo aad wada degtaan adinkoo jooga haddii alla yiraahdo annaguna markaas muxuu ahaa aan ku farxaynaa wadaad waxaa la yiri wuxuu walba u jecel yahay tuftaadii waa kacda ma garad marka waxaa dhagaha anaga dilay waa la weeraray 10 baa dishay 6 baa dilay 4 baa la dilay waxaan jecel lahay inaan muxuu ahaa maanta ka bacdi iswarsanin oo isweydiin yaa la dilay maxaa la qabtay maxaa la buskeeyay maxaa caafimaad qaaday maxaa wanaag la qabtay maxaa lagu heshiiyey baan rabnaa in la yiraahdaa waxyaabaha aan karaahaysanay waxaa ka mid ah qof baa la dilay qof baa la dhaawacay qof baa la weeraray aad bay dhibaato u tahay runtii arrintaas yacni waxaan ugu noqotay boog nagu taala runtii bal walaalayaal ka warrama ninkaas meesha la dhigay qoysku ka yimid saa ka warrama u soo shaqo tagay islaantaas soo ekaanaysa carruurta soo ekaanaysa annaga waxaan rabnaa ilaahay cabsidiisa inta wax walbaba u hilmaanno meelaha yararka lagu kala oodan yahay inaad jabisaan nimankiinaan mas-uuliyiinta iyo amnigiina iyo dhallinyaradiina waxba annaga cirka wax nooga soo daadan mahayaan wixiinaan qabsanin wallaahi baan qof inii qaban karaa jirin ilaahay ka sokow xaqiiqo weeye marka geedahan fooda aad ku haysaan inta dadkiina ka saartaan aada runta inta ku dhawaataan inuu ku filan 40 sano waaye aragnimada iyo quruxna loola ordahayay qof la dilay isu furta dhulkiina wada daaq wada dega